wanaagga Qur'aanka ayaan ka arkay. Qisadani waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Haweeney muslimad ah ayaa waxay soo booqatay haweeney ay jaar yihiin oo xanuunsaneed laakiin aan haysanin diinta Islaamka. Waxayna aragtay ayadoo jiifta firaashkeeda. Haweeneydii muslimadda ah waxay ugu soo dhowaatay si naxariis leh, waa ayna salaantay. Kadib waxay ku dhahday, ii oggolow inaan kugu aqriyo qayb ka mid ah Qur'aanka Kariimka. Annaga haddii aan muslimiin nahay waxaan isku daaweynaa inaan isku aqrino Qur'aanka markii qofkeen uu xanuunsanayo. Sidoo kale Qur'aanku waxa uu ina faray inaan u ixsaan falno deriskeena xataa haddii uu haysto diin aan ahayn diinta Islaamka. Haweeneydii waa ay ku raacday, waxayna ku dhahday, waayahay, samee oo igu aqri Qur'aanka. Laakiin ka hor intaadan bilaabin Qur'aanka, fadlan ii soo qabo biyahaas agtaada yaala, maxaa yeelay waxaan dareemayaa oon aad u daran. Haweeneydii muslimadda ahayd waxay u soo qabatay biyihii, waxayna ku waraabisay gacanteeda midig, iyadoo gacanteeda kale bidixda ku soo celinaysay madaxeeda. Weliba ayadoo u dhoola caddayn ay ka muuqato farxad iyo naxariis. Haweeneydii muslimadda ahayd waxay ku dhahday haweeneydii kale, waxaan arkaa inaadan wax cunin maalmahan oo dhan, saas miyaysan ahayn? Haweeneydii aan haysan diinta Islaamka waxa ay ku jawaabtay, haa, maalmahan oo dhan wax maan cunin, waayo maanan helin cid wax i siisa ama cunto ii keenta. Si degdeg ah ayay haweeneydii muslimadda ahayd uga istaagtay fadhigeeda. Daqiiqado yar kadib waxay u soo laabatay iyadoo wada cuntooyin kala duwan. Waxayna cuntada ku siisay si samar leh oo aanan dhibsi ku jirin, ilaa ay ka dheragtay haweeneydii xanuunsaneed. Haweeneydii muslimadda ahayd waxay bilowday inay nadiifiso meeshii ay jiiftay iyo meeshii ay cuntada ka cuntay haweeneydii xanuunsaneed. Kadib waxay u shiiday cabitaan ku habboon xanuunka haya. Kadib ayaa waxay ku tiri, ma kugu akhriyaa Qur'aanka Kariimka? Haweeneydii xanuunsaneed iyadoo dhoola caddaynaysa ayaa waxay ku dhahday, haa, ma kaa diidi karo, waayo wanaagga Qur'aanka ayaan ka arkay inta aadan igu aqrin ka hor. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نطيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.